hooyada maanta hadday nooshahay ka tagin iyada lugaheeda laazim adeegeeda ihsaankeeda ka farxi hooyo way ku baahan tahay in badan bay xoogeedii ku siisay way daciiftay mar walba aad xoog yeelatid iyada daciifaysa ishaada markay nuur yeelato aad si fiican wax u aragtiteedii way daciifaysaa dhagaha markaad si fiican wax uga maqashid way jigaysaa hooyo dhagihii bay ka daciiftay marka murqahaaga ay ku kuustaan oo aad xoog yeelatid kuweedii waa dabcaayaan way dabcaayaan xataa hooyo waxay ku hurtay timaheedii quruxda badnaa ee madooba waa kana hooyada maanta tima caddahay way ciraysatay hooyo maanta waata way soo godatay sariir ayay hooyada saaran tahay sariiray saaran tahay orbaad joogtaa waad raaxaysanaysaa 9 bilood waa 9 bilood uur ay kugu soo waday 2 sano ay ku nuujinaysay ilaa iyo goorma 18 sano maalinkii la rabay inaad hooy garb u noqotid dhunkadid xambaartid hooyada haddaad ka tagtay war ninkan jannada kugu bishaaraynay ee banaanka jooga ee adigoo xoogan intuu murqaagii arkay yiri wallahi kan baasuka waa qaadi karaa يا وجهادي كرا كلها كالي جنة كجينيا محو ميريسنا يا مالها محو الدنيا وكل جوشيا محو أسلموا آدم جنة ما جنة لصدورة أو عقله ما جنة لصدورة إلهي بذكور داري أول إذا الكود حاسس كودي عيال كودي لأن يرد لبات الجرد الجامعة عليه برنيا الدنيا أوروبا وصادر سدن مصر إن الجوجان وجامعة عليه وفي عناوي دجنايا هو علمي كلنا تذكي كلنا علمه هذي بيله الجنة وريا والدك وقالجع علمه سجنه إلى يبلك دارين أو عقله سو مؤجد أنت أدنى الله شؤوق قبل كرتين هايدا والدك أمة الإسلام أيا كبرا أنت أدنى مش شؤوق قبل نيسده ورقفها دور أنتو محو قبلها يا إلى يبلك دارين وأدمتي أديها مسكين وكل ضحي عمل كيسي واقو أيه وصدقيه ودعيه إذن كليهين يا محاد كو قبن كرتا دمشada هذا ورنولشا wax lagu qaban kara ilay المصير عبد الله بن عمر baa wuxuu arkanin hooyadiis garbaha ku sida oo kacbada la dawaafayo la wareegayo markaasuu yiri عبد الله بن عمر ma u arkaysa inaad hooyo xaqi igu lahayd inaad iska guday ma u arkaysa maadaama ihsaanka heerka gaaray aan garbaha ku sidoo dawaafinayo markaasuu yiri wala bi talqatin waahida min talqatiha iskada inaad waxa weeyaa xaqeedii gudade fooshi qabatay xanuunkeedii mid kamid ah baad gudin markay foolanaysa xanuunkii hayay dala kuleylkii xanuunadii qabanahayay mid kamid ah ma aadan gudin ولكن أحسنت بان كل يوم وهذا إحسان سميسي والله يثيب على القليل كثيرا وحيروا على التمادد وإحسان يا إلهي وحبا كو أمال مرني يا إلهي كو أمال مرني هدي الدنيا ذا كتجا وأيد إنسان حقه دي من نجاهري ماذا للأنصار يا النبي قوي من صلى الله عليه وآله وسلم مركز سووحوا يربار النمدي والد كي hadday dhinteen wax haray biya jira oo aan u sameeynahay magaasaa nabigu yiri nacam khisal arba afar arimood ayaa haray as-salatu alayhima wal istighfar lahumma wa mid ina ud'aysid istighfarna ilaahay u weydiisid xaqa waa kugu dhimaya kugu taagaya ma gooyin وإنفاذ عهدهما ومتك اللبات وحي بلن كودي أها إنا أوفيسي وحي والدكو أي كالب بلمان وبلن كودي أها إنا أوفيسي شرطنا وحا بلن كاسينو يهي بلن وافقصا شرعي إله هدو كالب بلمان قرابة الجو من اللي أوفيني هدو كالب بلمان مركان لنطاش واحد بدعاء وأنصحها هاي إيسو الصبيح وحرام من اللي أوفينها انت صحولا يتعسيدك يوحى إيسامه قبر جاي قدس سنة كستحولها كوكل أو إمو أشي بدعاهم محرم أول من اللي أوفينها وحاويها الآن أبضا وأن اللي أوفينها هين والدك هدو دينتو هدا دينتو وإلا إقاضا لا يقول حبالا ماشي أو يالي أبيال يكون حبالنايين ديارات بالله سارية انتاس أو سفرها اللي قليلية
qarashka inta leeg baa la gelinayaa baatil weey bal dadka sida yeelahaya fiqiga waxa ku taala sida kitaabka minhaajka la yiraahdo ويحرم نقل الميت ميت إلا نقليا وحرام ميت كما يشو كل إنت إلا جرى وحرام ليش أسألكوا حوالي ميت ربي وحقصينا يا تبارك وتعالى مركز تيسيد قودنا احترام كذو وسي وينانا يا ويلش يا قبل هذا خدم يا أديك وحيقول نقول يا يد هوست هذا كو قصبا سيدا الزرادة أيا وحوي هو يدو دينتنا دحده مجتمعات مسلم كان دحده هو يدو بقرات هو يدو ملكات يدو عجوزه هبره صريرته كو ورستي با كل لغا ولا امر قادنيا ويل كده مدخدا امده ملك يا بقرك او ايده markuu u yimaado iyadu ka amar qaadanaya iyada boqor waa wiilkeeda caalimkee magaca leh markuu iyada u yimaado ilmo yar oo hoosteeda ku ciyaaraya way amarkeedu qaadanaya wiilkeeda mutacallimkee aqoonyahankee shuhrada leh markuu iyada u yimaado adoon u adeegayo noqonaya hiya almalika inta kale taayada adeegayaan u yihi waa habar ku urursatay sariirta ku urursatay حتى اسكبر داف عقليgeedu inuu jooge عقليgeedu haduu tago iimaanka weyda xataa ayada la hoos jooga ila qabriga lagu hubsado wata diinta rabbi tabaaraka wa taala waxa garab dhigtaan ummadahan maanta ku faanaya xadaarada iyo ilbaxnimada ku faanaya qiyamka iyo dhaqan wanaaga ku faanaya hooyo meeshay dhigeen iyo aaba meeshay dhigeen iyo diinteenu meeshay dhigtay soo fiiriya galbeedka iyo dhaqamadooda mar walba doonaya in iyaga la raaco ugu faanaya annaga adduunka hormar gaadhnay waa in annaga la raaco dhaqankii ugu wanaagsanaana annaga dejinay kii rabbi mid ka fiican baanu keenay u fiirsada hooyiya aaba xagay dhigeen ilmuhu markuu qaan gaadho ku rafaadaan koriyaan si walba maraa markuu ilmuhu qaan gaadho hooyana ma yaqaana aabana ma yaqaan waxaad moodaa xoolaha bini aadamku dhaqdo ayaa ilmuhu intuu hooyadii u baahan yahay oo naaskeeda noogayo ayuu ku daba xidhan yahay laakiin mar hadduu ka kaaftoomo oo xoogaysto waxartu hooyadeed ma taqaan orgiguna hooyadii ma yaqaan dibiguna hooyadii ma yaqaan waa ka madax bannaanaaday xoolaha kama yaqaan إلهي باوحو هوري ويلي تبارك وتعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل وحوله كالبل وبكلبه وكضل القضية هو يحكي بك هو يلا ما يفعل مركي انت يحوق لا هاي وي أرديسو يدا أديغن هدي وهل أباهتان أي با وهل أباه قلك iyo falaadka ay degan tahay wehelkeedu waa ay baa wehelwa isagaa la nool marmarka qaarkood intuu baahdo ayuu cuni ayadoo waa hore uu cunay baa laga warheli ay baa hooyadii wehelu ah midda ugu rooni waa midda inta la qaaday meelaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo lagu tuuray weeye halkaas ay ku dayacan tahay dad aynan dhalin shaqaale ah aan u danqanaynin aan u naxariisanaynin baa gacanta ku haya oo saxarada ka tiraya oo kaadida ka tiraya oo kahanaya oo dhibsanaya oo shilinkooda uun ku ilaashanaya halkaasaa la dhigay marna ay baa wehel looga dhigay marna meeshaasaa lagu tuuray carruurteeda midka ugu baarisani waa midka xilligada munaasabaadka waraaq u soo dira tahniyad ah ciid baa la gaadhay hooyadii oo Sweden joogto Mareykanka waraaq uga soo diray boostadu u soo dhigaya waa baarikaas waxa ka sii baarisan ninka intuu soo tago u yimid oo soo booqday oo intuu salaamay ka laabtay waa baari ma been baa la isu sheegay diinta islaamkuna halkaasay geysay boqoraday ka dhigtay oo cid walbay hoos geysay hooyo markay duqowday ayaguna halkaasay dhigeen labada jidkee baa saxsan diinullah tabaaraka wa tacaala andimadeeda iyo axkaamteeda iyo xuquuqdeeda waa diin rabbi ka soo degtay
middanna waa mid bini aadan malmaluuqo gacantiisa ku samaystay weliba bini aadan gaal oo kaafira oon ilaahay aqoonin tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed inaynu waalidkeenna ka صحيح مسلم كقصدي كله كتالي جريج عن كوت المامو نبي عليه الصلاة والسلام مركو شاقي صدح دي الموضة ضربت كو هضلي وحاو شاقي نين جريج الله يدهدين وشري oo caabida oo meel u baxay keligii meel ku cibaadaysto oo guri intuu dhistay dabaqa yara sare gala oo halkaa keligii ku cibaadaysta hooyadii baa soo booqato u timi dabeetana isagoo salaad xidhan baa u timiyo yaa Jurayj bay tiri ummi wa salaati buu yidhi hooyo iyo salaad dabeetana salaadu iska wato hooyo way iska noqoto maalin labaad bay timi sidii si lag buu ugu yeedha haddana ninkani waa nin cibaado u go'ay hooyo iyo salaad buu yidhi dabeetana salaaddii buu iska wata mar saddexaad bay u timi sidii oo kalaa dhacday dabeetana way habaartay ninkan caabidkii halkaa ku jira ilaahu isaga iyo dumarka xunxun istus bay tidhi waxay ku habaartay isaga iyo muumisaadka dumarka xunxuni inay sarkaan waxaa la yidhaahdaa qisada meeshan waxaa deganayd gabadh aad u qurux badan oo haddana dumarka xun ka tirsan dabeetana iyadoo Jurayj la ammaanayo cibaadadiisa laga warramayo ay maqashay waxay tidhi kaa sheegaysaan bal aniga igu dhiga waxaan ku sameeyo anaa idin tusi doona dadka badh baa shayaadiina oo xumaha jecel qof aan waxba u geysan bay waxay leedahay anaa xadhiga weydaarin doonay aniga igu sima way soo baxday Jurayj way isu bandhigtay laakiin ninkani cibaado u go'ay qawsaar ama dhoobisa u taqaaniin mid xoolo raaco meesha jooga ayay gabadhii isu dhigtay ilmay dhashay yaa dhalay baa la yidhi ilmahana waxay tidhi Jurayj baa dhalay Jurayj baa sawmacadiisii baa la dumiyey meeshii uu ku cibaadaysan jiray baa la yidhi tuuga xumeeyo intuu hablaha u weydaartaabuu halkan wadaad iska dhigaya waxaa dhacday markaa wuxuu yidhi war bal ilmaha u yeedha ilmihii baa la keenay ilmihii buu gujiyey laba ragcadood buu tukado kadib intuu ilmihii gujiyo yidhi man abuk war aabbaha waayo ilmihii yaraa baa ilaahay ka hadliyey wuxuu yidhi waa qawsaarka gala adhiga raaca waa ninka xoolaha jira qisadani laba wax bay tilmaamaysaa kow waxay tilmaamaysaa cibaadada anfaceeda waxay kaloo tilmaamaysaa weligaaba cibaado badna waa haddii odagiyo islaantu wax kaaga tagaan inaad khatar ku sugan tahay waayo islaantaasi habaarkay habaartay waa la istusay isaga iyo wixii ay ku habaartay isagana markii dambe ilaahay wuxuu ku badbaadiyey oo ku karaameeyey cibaadadiisii tirada badnayd ee uu samaynayey asalna waxaabay culammadu leeyihin faradka loogama baxo laakiin adoo sunno ku jira haddii waalidku yeedho